iyadoo oo laga ilaalin lahaa inaad balwad baratid oo aad sharmuuta naqatid oo aad xumaan samaysid iyadoo laga ilaalin lahaa ayaa waxa mubax ku ah si adawga u dhakrisid in haddii xashish aad ka dawactid marka nin amni oo sunti waxana wanaagsan qiyaarta wadaan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaan idin leenahay waqtiga idin waxnaado dhamaantiin muuqaalka la gareeya cid walba muuqaalka la gareeyo waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala u weydiinayna in umureeda ilaahay u sahlo ilaahay subxaanahu wa ta'aala awlaadda uu barakeeyo inta awlaaddoonkaana ilaahay awlaad baari ah hasiyo inta guurdoonkaana ilaahay guur iyo mustaqbal wanaagsan hasiyo qof walba muuqaalka la gareeya ilaahay waxaan u weydiinaynaa oo aan kaga baryaynaa in ilaahay umurahooda si degdeg ah u sahlo muuqaalka leegta ku qaba xaasidka waxaan leenahay waa min sharri xaasidin idaa xasad alxaasid laa yaflax adduunya iyo aakhira waxaad ku dambeynaya hoog iyo khasaaro maxaa yeelay xaasidka faa'iido ma laha ee iska daa xaasidnimada leegta ku qaba muuqaalka leegta lacag ma aha waxaan eegi doonnaa nisa iyo weliba dagaalyahanada al-shabaab qaybta amniyaadka oo dagaal xooggan ku wada jira xilliyadii ugu dambeeyay ayadoona nisa ay qabatay dad tiro badan kadib markii la helay madaxii amniyaadka gobolka banaadir maxamed xaajo oo loo yaqaan ilka case kaas oo ahaan bare ka tirsan jaamacad ku taal muqdisho hay-adda nisana la shaqaynayay sanado badan waxaana maxamed xaajo oo sheekadiisa iyo siduu nasa kaga biiray aan muuqaalo kale kaga soo sheekaynay uu sheegay dad aad u tiro badan oo la shaqeeya dagaalyahanada al-shabaab kuwaas oo bulshada qaarkood magac ku dhaxle qaarka kalena dawladda ay u shaqeeyaan sidaad la wada socotaan waxaa la xiray madaxii rugta ganacsiga ama gudoomiyihii rugta ganacsiga ee gobolka banaadir iyo ku-xigeenkiisa sidoo kale agaasimiyihii fanka ee gobolka banaadir gaarane yarka lagu magacaabo fanaan ahaa heesihiisana si weyn lagaga sii dayn jiray telefishinka qaranka soomaaliyeed ee SNTV waxaase sidoo kale hadda dadabaad xiran dhalinyaro youtube ley ah kuwaasoo caan ka ah muqdisho iyo weliba soomaaliya inteeda kale waa soomaalida dhexdooda caan ka ah kuwaasi uu sheegay inay la shaqaynayeen shabaab maxamed xaajow ilka case madaxii amniyaadka al-shabaab ee gobolka banaadir haddaba waxaan eegi doonnaa arrintaasi haddaad nagu cusub tahay ka mid noqo kumanaanka kun ee dadka ee nagu xiran si aad u heshid macluumaadka iyo silaha qarsoon ee aan soo gudbinno haddaad saaxiib nala tahayna waad ku mahadsan tahay tanii markii la qabtay madaxii amniyaadka ee gobolka banaadir maxamed xaajow oo loo yaqaan ilka case ama qaalid cadaawe waxa uu sheegay dad aad u tiro badan oo qaarkood ay ku jiraan ay ka mid yihiin xubno ka tirsan baarlamaanka xubno sidoo kale ka mid ah ama ka shaqeeya wasaaradaha dalka oo qaarkoodba ay yihiin agaasimayaal guud ee wasaaradeed kuwaasoo gacan saar la leh dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab dad tiro badan ayay hay-adda nisa ee xirtay kuwaasi oo lagu helay caddeemo ku aadan inay la shaqaynayeen amniyaadka al-shabaab isla markaana hadda u xiran nisa halka qaarka kalena lagu raajoogo oo nisa ee baarayso caddeemaha uu keenay maxamed xaajow iyo weliba xogta uu bixiyey maxamed xaajow ilka case ayadoo qaarka kalena nisa saraakiil ka tirsan ay ii sheegeen inaan lagu fududaa karin maadaama xasaanad ay leeyihiin isla markaana la raadinayo caddeemo ka baxsan inta hadda ay hayso hay-adda nisa waxaa toddobaad hadda nisa u xiran hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed wiil lagu magacaabo siidow lugeel oo ka tirsanaa dhalinyarada sida weyn u isticmaashay youtube-ka isla markaana bulshada soomaalida muddooyinkii dambe sida weyn ee u baratay siidow lugeel wuxuu ka shaqaynayay durdur media oo ka mid ah baraha youtube-ka ee sida weyn loo daawado wuxuuna muddo fog la shaqaynayay xasan toob oo ah maamulaha ama qofka ugu sareeya ee ama ka mid ah madaxda durdur media xasan toob ayaa la sheegay in wax badan uu ka ogaa dhaqdhaqaaqa iyo weliba xogta ninkan siidow lugeel lagu magacaabo hase yeeshee arrintaas waan aadi doonnaa laakiin aanu eegno waa kuma siidow lugeel wuxuu si weyn u isticmaalayay baraha bulshada gaar ahaan barta youtube-ka asoo la shaqaynayay durdur media bilihii iyo weliba sanadihii ugu dambeeyey waxaan eegi doonnaa siidow lugeel ma ka tirsanaa al-shabaab halkees markuu ka baxay kadibse muxuu qabanayay maxaase hadda hay-adda nisa ay ugu xiran yahay muddada toddobaadka ka badan haddaba waxaan eegi doonnaa arrintaas siidow lugeel wuxuu ka tirsanaa dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee ka dagaalama soomaaliya iyo dalal dhaca geeska afrika xilli wuxuu qabtay xil muhiim ah oo ah madaxa canshuuraha ee gobolka banaadir ee dagaalyahanada al-shabaab xilligii shabaabka ay haysteen in badan oo ka tirsan magaalada caasimadda ee muqdisho waa sanado badan ka hor wuxuuna xilli ka mid noqday ragga ugu firfircoon ee amniyaadka gobolka banaadir ee ikhtiyaalka ama dilalka sameeya sidoo lugeel kadib wuxuu ka mid ahaa dhalinyarad aad u tiro badan oo ka soo goosatay dagaalyahanada al-shabaab kadib markii ay ku qanci waayeen qaabka iyo qorshaha shabaabka qaabka ay u wadaan wuxuuna ku soo biiray dawladda Soomaaliya ama uu dhanka dawladda soo galay
xilligii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ahaa madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaase macruuf ahaa in sidoo lugeel xilli uu ka tirsanaa oo dad badan ay ogaayeen wadadka yaqaan isku deegaanka ay ahaayeen ay ogaayeen in sidoo lugeel uu ka tirsanaa dagaalyahanada al-shabaab waxaase kadib hadda uu la shaqeynayay qolo ka tirsan sirdoonka reer galbeedka oo ku sugan xirada xalan leh ee magaalada Muqdisho oo uu siinayay informationada dhanka dagaalyahanada al-shabaab taasoo u sahlaysay sidoo lugeel in al-shabaabka information uu ka helo waxaa dad badan ay isweydiinayaan sida ay ugu sahlanaanayso sidoo lugeel in information shabaabka uu ka helo wuxuu si weyn ula socon jiray dhaqdhaqaaqyada qaraxyada shabaabka ay sameeyaan taas uu u gudbin jiray hay'adaha sirdoonka reer galbeedka ee ku sugan xirada xalan leh waxaa dad badan ay isweydiiyaan xalan leh waa saraakiisha sirdoonka ee xalan leh ku sugan mar walba waxay sheegaan qaraxyada ka hor intaysan dhicin waxaase hadda muuqata in xogagta ay ka helaan dad kale oo Soomaali ah oo qaarkood la tuhmi karay in qaraxyadaasi wax ay ka og yihiin ama wax ay ka qorsheeyeen sidoo lugeel walaalkiis la dhasho ku hooyo ku aabba ah waa madaxa istishaadiyada ee dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab dad badan ayaa istishaadiyada aan fahmi karin istishaadiyada waa madaxa isqarxinta dagaalyahanada al-shabaab waa ninka abaabula qaraxyada diyaariye dhalinyarada isqarxinaysa iyo waliba arimaha qaraxyada waa qaraxyada isqarxinta ah arimahooda dadka quseeyo dhan waxay hoos tagaan sidoo lugeel walaalkiis wuxuuna madax ka yahay ama waa madaxa qaybta guutada istijaadiyiinta ee dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab taas oo keenaysa in sidoo lugeel uu helo xog badan dhici kartana in labada dhinac uu la shaqeynayay waxaase arrinta muhiimka ah in ilka case ama maxamed xaajow saaxiib dhow ay ahaayeen sidoo lugeel isla markaana ay wada shaqeynayeen saaxiib aad iskugu dhowna ay ahaayeen ma caddayn karno in sidoo lugeel uu ogaa maxamed xaajow inuu yahay ilka case ama uu yahay madaxii amniyaadka gobolka banaadir inuu sidaas u yaqaan ama in si kale u yaqaan laakiin waxaa la sheegay in sidoo lugeel uu sheegay ilka case maxamed xaajow isla markaana hay'adda nisa uu gudbiyey in weli sidoo lugeel uu ka tirsan yahay dagaalyahanada al-shabaab xalanlana uu siiyo xogta shabaabkana uu fududeeyay qaraxyada iyo weliba meelaha la qarxinayo uuna mararka qaar uu geeyo gawaarida la qarxinayo sida ilka case xogta uu ku bixiyo ila kaloo arrimaha amniga ahna ay xaqiijiyaan taas oo keentay in muddo toddobaad ah hadda sidoo lugeel uu u xirnaado hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee nisa waxaasa dad badan ay isweydiinayaan sidee durdur meediya uu ugu shaqeeyay ama meediyaha uu u soo dhaxgalay oo xasan toob uu u ogaan waayay sidoo lugeel qofku uu yahay xasan toob lama hadlin aniga laakiin aan ogahay oo dad badan ay og yihiin in xasan toob uu ogaa sidoo lugeel inuu mar ka tirsanaa dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab haddana uu la shaqeeyo sirdoonka xalan leh waxaase dad badan ay isweydiinayaan xasan toob oo anin wariye ah isla markaana muddo saxaafadda uu ku guda jiray sida uu ku aaminay nin naqday madaxii canshuuraha ee gobolka banaadir dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab haddana xalanada ka shaqeeya qaabka uu aaminay isla markaana bulshada uu baray uu ka dhigay qof caadi ah oo bulshada ka tirsan oo sameynaya majaajiro ama sameynaya shactiro ama uu ugu ogolaaday in bulshada uu la hadlo qof mar naqday amniyaadka al-shabaab marnana naqday madaxii canshuuraha gobolka banaadir haddana naqday jaajuus kaloo u shaqeeya sirdoonka xalanla jooga sida xasan toob uu ku aaminay xasan toob oo dad badan ay aaminsan yihiin inuu yahay qof nadiif ah oo saxaafadda muddo ku soo guda jira haddaba xogtaasi dib ayaan idinku soo gudbinayaa dhammaantiin waxaan leeyahay ilaahay idin xifdiyo ilaahay umuriina sahlo ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaanteen waxaa weydiisanaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu dembigeena iyo kii waalidkeena ugu dhaafo allahuma laa sahla ilaa maa jacaltahu sahlan fajcal umuurana wa umuura almuslimiina kullaha sahla rabbana dalamna anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakunanna min alqaasiriin ilaahu waxaan ku weydiisanaynaa gargaarkaaga iyo kaalmadaada iyo naxariistaada ilaahu dhammaanteen bayna xifdi oo inoo gargaar ilaahu awlaadda inoo barakee dhammaanteenba ilaahu inta awlaaddoonka ilaahu awlaad baari hasi yaa allah ilaahu inta awlaaddoonka ilaahu awlaad baari hasi ilaahu inta gurdoonkaana ilaahu guurkii mustaqbalka u wanaajiya ya allah ilaahu magacyada wanaagsan waxaan kugu weydiisanaynaa gargaarkaaga naxariistaada iyo raxmadaada ya allah allahu laa ilaaha ilaa huwa arraxmaan arraxiim الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى إله وحن كوجو يدسنا جرجار كاجي كلمة هذا إن حريست هذه إله دمانتين بفرج غير قبل إله نوفر أو إله دمانتين بنحفدي إله وحن كمان قلنا كوا شرطة دبعتها يلقوه إن الله دم حسن وحشرة أو دبعتها أو لقويها وينهم لقين إله كؤلي إله دمانتين با وحن كسؤال لنا أن كوجو يدسنا كلمة هذه جرجار كاجا إن حريست هذا الدنيا يمد إله وحد دمانتين بأن كوجو يدسنا كلمة هذه يا الله إياك نعبد وإياك نستعين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي
لما منعت ولا قاضي إلا قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد إله دمانتين بينو غرغار أو إله رزاقد إنو واسع أو إله دمانتين بنو نحريص إله دمانتين با وحن يدينا كجر إله نسي يا الله هذا نسين كري إله فرج غير قبل نوفر أو إله نو نحريص أو إله كلمة هذا نسي إله يا أذان كبرينا يا الله إله صوماليا علاسكي دبعتها كدل قاضي إله مد صوماليا نحريص أو إله غرغار كاغسي ومد صوماليا وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.